السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبشر حسن فاونديشن أنيقو منمح معبدية دمان walaalaha meelaan joognaba ilaahay ha inoogu nabad yeelo waxaan rabaa abaayooyinka ama walaalaha janalka aan wadaagno in aan ka raali geliyo in aan dhowr jeer aan iri insha Allah waxaan jeclaan lahaa inaan live soo galo haddana ii socon weysay iyo sheekadii asli oo iyadana sidii la rabay aan mar walba aan u soo gudbin waayay labadaasba waa ka cudur daaranayaa waxaa jira in aan soo dhajiyey in aan rabay mar inaan live soo galo oo ka hadlo anoo jeclaan lahaa inay gabdho kale walaalo ay gala qayb qaataan aan ka hadlo maxaa noogu wacan in aan luuqadda adag wax ku fahano yacni badankeena Soomaali yacni majority-geeda inaan noqonay dad luuqad adag kaliya wax ku fahmo maxaa keena sababtu maxay tahay marka waxaan rabaa insha Allah kuleyba inaan mar si live aan uga wada doodno oo pro iyo contra aan noqono laakiin hadda aniga aragtidayda inaan idinla wadaago ayaan videogan maaragtay jeclaystay oo waxaan isleeyahay waxa keeni kara inaynu noqono dad hadalka adag iyo qaylada kaliya yacni communication ku sameeya oo wax isku weydaarsada ama wax ku kala qaata ama ku fahma yacni waa wax maaragta xidid hoose inuu ku leh oo ma arkinoo basekeeni hoose ayaa taa keenaysa waayo kuleyba ilaa iyo haddana waa iska taha u malaynayaa caruurta Soomaaliyeed sideedaba markay caruurtu yaryar yihiin yacni qaab oo maaragtay kala garqaadasho iyo qofka in si oo naxariis ama maaragtay tartiib ah hadduu khaldan yahayna looga garqaato oo khaladkiisa uu ku qaato hadduu gar leeyahayna gartiisa lagu siiyo kuma soo barbaarin badankeenu oo badanka caruurta waxaa laga yaabaa inayba kusoo barbaarin inaan noloshooda gar la siin inuu ilmuhu intuu yar yahayba ama uu qaangaarka yahay qofka uu soo korayo uu yahay inaan noloshiisa la barin in laga khaldanaan karo inuu asagu khaldan yahay ma ahane in asaga la saxaya ma ahane inuu waxba ku saxnaan karo sidoo kale iskuulada iyo dugsiyada caruurta dil iyo qayla wax lagu baraa yaa ilmaha dil iyo qayla wax lagu baraa waxaa arkaysaa hadda dugsiyadeena quraanka oo kale qaab caruurteena waxaan wax u barnaa caruurtii oo dhan hal mar la wada leeyahay ayagoo maxaa la yiraahdaa yacni quraanka suurado kala duwan iyo jusas kala duwan ku jira haddana in kulligood hal mar quraankii la yiraahdo maaragtay wada akhriya oo kor loo wada akhriyo quraanka oo qof walbaba xataa codkiisa uu qofka kale asaga codkiisa uusan maqli karin iska dhaaf codka kale qofka kale inuu maqle caruurtoo dhan in hal mar ma arkino mid halkaa cama ka akhrinayo midka kale yaasiin halkaa ka akhrinayo midka kale alnisaa halkaa ka akhrinayo mid faatixadii akhrinay mid yar iyo mid weyn kulli hal mar kabiirkii intuu u la soo galo kulligeen dhawaaqa quraanka kor u qaada aa laleeyahay sidoo kale marka caruurta xataa maxaa la dhahaa wax la barayo oo sabuuradda wax loogu qorayo qayliyaa laleeyahay kulligeen markii wax maxaa la dhahaa loo akhrinayo daasaa la wada leeyahay qofkii goormuu marka maxaa la dhahaa wixii fahmaya adiga markii agtaada laga buuqayo yacni concentration ma samayn kartaa wax ma fahmi kartaa waa maya laakiin maskaxdii way la qabsata haddana buuqaasay la qabsata oo annagii marka waxaan rabnaa iyo kelma iyo hadalkaa adag in si adag wax lagugu sheego in qofku ma aragtay emotionkiisa yacni dareenkiisa uu kaco markuu wax kuu sheegay markaas oo uu qayliyo ama ilmuhu inay ooyaan ama oohin qofka weyna dee uu markaa maxaa la dhahaa awood iyo ma aragtaa uu sheego dareen adag inuu ku hadlayo markaa ayaa qofka maxaa la dhahaa maaragtaa la fahmaa oo wax laga qaataa hadda waxaa arkaysaa haddaad social mediada kaliya haddaad fiirisid noocay rabtaba ha ahaato Facebook YouTube yacni meel walbo social media ah u fiirso meelaha loogu daawashada badan yahay ama maxaa la dhahaa dadku ugu xiisaha badan yihiin waxa waaye markaa hadalka adag ku hadlaysid yaa markaad qabiilada caayaysid markaad aad maxaa la dhahaa diinta ma arkino
la isku haysto oo ma arkin oo maxaa la dhahaa dad ama wax ka sheegaan ama maxaa la dhahaa yacni wax negative ah meeshaas wix ama wax ma arkin oo markaa dadka ugu badan oo ka qayb qaadanaya oo markiinoo maxaa la dhahaa commenteska bixinaya waxa waaye negative ay u badan yihiin waa dad cay iyo aflagaado iyo qoraya oo maaha inay teemada xiiseynayaan qofkaas inay radiyaan inay caayaan anagoo dhan ummad radisaan nahay inaan wax radinaan jecelnahay inaan kala gar qaadano oo ma arkinoo ma jecelin aan wax maxaa la dhahaa yacni si kale u fahano ma jecelin waxaan rabnaa keliya inaan wax radiyo oo aan qofka ma aragtay maxaa la dhahaa aragtidiisa ku radiyo ama aidiyadiisa ku radiyo keliyaan rabaa aniga laakiin igama aha si daacada inta daacadda ah oo wax qoraysa haddaa u fiirisid boqolkiiba waxaa laga yaabaa 2 qofood ama 3 qofood inay ma aragtay ay hadal oo ma aragtaa qofkaas ay kula hadlaan macquul ah ay u qoraan ayagoon caytamin oo wax kala sheegin oo qof diintii waxaa arkaysaa daafacay oo haddana caytamaya baa arkaysaa marka haddana waxaa is leedahay dadku meeshii ma ka gudbaan miyaa oo ma arkin oo qofku yacni jawi waad ku jiri kartaa markaa weynaatid intaa yar tahay oo dhalinyarada tahay iyo aa soomaaliya ku nooshahay ama xataa adoo soomaaliya ku nool markaad xoogaa weynaatid inay wax iska kaa bedelaan oo wax badan akhrisid maanta waa fududahay inaa wax badan akhrisid wax badan inaa internetka kala socotid dad badan dhalinyaro badanoo waxaan ku arkay maasha allah soomaaliya jooga oo runtii anagoo badan oo halkan joogno qurbaha ku nool naga garaad fog oo naga fog oo maxaa la dhahaa aadna dhalinyaro u ah ilaahay ma aragtay maxaa la dhahaa siiyey ma aragtaa aragti fog oo waxyaalo badan maxaa la dhahaa internetka kala socda waxyaalo badan ka akhrista ayagii ma aragtay is soo kabay oo maxaa la dhahaa naftooda wax badan baray marka maxaa marka aan samayn karnaa waaye hadda in generationka soo socda wax laga bedelo qaabka loola dhaqmayo si ma aragta aggressivekan tirada badan iyo maxaa la dhahaa inaan noqono keliya dad hadalka adag keliya wax ku fahma amaba dhaha xataa qofkii xididada saan ugu jari lahayn siiba yacni waxa kan sidaa xididada ugu jari lahayn waayo wayna soo wada kartay waa sax oo dadkeena qaarkood waxay noqdeen baqa carar yaa inaan baqa cararno oo qofkii aa ka carartid bay noqonaysaa laakiin taasna dee macno samayn mayso brobleemkaaga haddaa ka carartid waa waxyaalaha aynu la soo wada qaxnay brobleemkaaga waa inaad u istaagtaa inaad xalisid ma aha inaad ka carartid waayo brobleemkii mar walba ku daba soconaya waayo waxaa arkaysaa dad badan oo annaga naga mid ah waynu soo qaxnay wadamadaanaa nimid waxaan u haysanay brobleemadeeni inaan kasoo tagnay laakiin dhabarkay noo saarnaayeen waan wadanay kuwo kalaa noogu sii darsamay waayo markaan wadamadan nimaadno oo wadan aanaan aqoonin hawadiisii luuqadiisii dhaqankiisii diintiisii wax walba naga bedelan ayaa dhex nimid annagoo brobleem kalena na haysto haddana caruur baynu kusii dhalna oo rabnaa inaynu kusii korino brobleemadii marka way sii bateen intii kaa kasoo cararaysay oo aad wadatay iyo kuwo kaloo kuugu sii darsamay ayaa markaa maxaa la dhahaa dhabarka kaa fuulay marka qaabkee uga bixi karnaa waxaan jeclaan lahaa inaan marar badan discussion ka sameyno oon wax badan iska weydiino waay maxaa keenay in aan noqono dad hadalka adag wax ku fahma qofka walaalka ah markuu hadal wanaagsan kugula hadlo hadal maxaa la dhahaa macquula oo yacni aad qofkii maxaa la dhahaa hadduuba daacad ka wado waayo dadka badankooda qaarkood daacad ma aha yaa qofku waa wax khibrad inaad u lahaatidna ay fiican tahay yacni waxaa arkaysaa dad xataa intay raalli ahoo qofka yidhaahdaan aynasan daacad ka ahayna dan ku wata waynanu u badana runtii anu waan arkay oo qofku wuxuu isleeyahay qofka kan daacadda ah oo ama maxaa la dhahaa qofka kan ku deji daacad isaga dhig hadhowna dhulka la goo waa wax jira taa laftirkeeda oo qofka siyaasad buu ka wataa siyaasad buu u haystaa inuu qaabka nooca ah kuula dhaqmo
marka laakiin haddii daacad laga noqon lahaa oo qofku uu maxaa la dhahaa waxaan uu ka wado markaan ku leeyahay intaan ku imaado ku dhaho walaalow yacni waxaas iyo waxaas ka raalli ahow aan daacad ka ahay waxaan kuu sheegayo ama aan maxaa la dhahaa raalli ahaanta aan daacad ka ahay waxbaa hagaagi lahaa qofka kalena wuu soo degi lahaa laakiin markuu qofku soo dego oo uu u qaatay inay run tahay baa waxaa arkaysaa qofkii kaloo aanan daacad ka ahayn yacni wixii uu qofka ka raali gelinayay wixi uu maxaa la dhahaa uu ka watay siyaasad inuu ka watay iyo ku dangaar inuu ka watay ya danaysi baa meeshii soo gelaya qofka inuu badanaa familada iskula dhaqma waaridka iyo caruurta iskula dhaqma labada qofoodo isqaba iskula dhaqma inaa caruurtaada ku tiraahdid mararka qaar waxaasaan intaad wax u dirsatid oo cunuga markuu kaa dhaga adayga aad tiraahid waxaasaan ku siinayaa waxaas orod waxaa ii keen ama ii qabo oo ilmihii kuu keeno laakiin hadhowna aad wixii siin weyda aa u qaban weydid halkaa waxaa lagu kala fogaanaya maxaa la dhahaa is-aaminaadii marka aaminaad ma jirto teeda kale waxaa dhici karta xataa dadka qaarkood inay u isticmaalaan qofka kale in yacni uu isticmaali karoo kale qofku inuu rabo inuu ma aragtay kugu soo maxaa la dhahaa xerogeliyo waatan siiba dumarkaa la dhahaa ya been kusoo xerogeli runna ku dhaq yacni oo ah in aad qofka marka hore been u sheegtid oo isu dabdabcisid dhulka isu dhigtid adaa dan la istiraahdid hadhow markuu qofkii dabinka kuu soo galana aad ma aragtaa maxaa la dhahaa markaa aad micyo kala yeelatid iyo dad badan oo aqbalaba dadkeena badankeena waa aqbalnaa in maxaa la dhahaa aad qof aad u hogaansantid oo sababta ugu hogaansanaysid maxay tahay qofkaas dhaqaalu haystaa marka waa inaa u nacamlaysaa oo ma aragtay maxaa la dhahaa istiraahdaa bal xataa waxaa laga yaabaa in adiga dhaqaale kale uu qofkaasi kaasii galayo oo aad wixiisi wax ugu daraysid laakiin adiga dhaldhalaalkaas baa waxaad u malaysaa iyo qofkaas walaahi hebel waa soo dhaweynaya dadka hadda dibadaha markay ka tagaan oo kale oo i dalka tagaan oo kale dad noocaasaa jira oo ma arkin oo maxaa la dhahaa u orda qofka oo maxaa la dhahaa xagga gee okay qofkan markaa maxaa la dhahaa uusan shilan uga bixin kii dibadda ka yimid oo ma arkin oo asagiiba lacag lagu beelo oo lagu soo dhaweeyo oo ma aragtaa maxaa la dhahaa maadaama dadkan kale weligeed bay saas ahayd in noocaa loo dhaqmo ya waayo qofkii maxaa la dhahaa qada haystaa quraac loogu daraa miyaa ma aqaan in yani dadka la daba ordo qof yacni lacagtaa keenaysa maxaa la dhahaa qof inaad u aragtid inuu wax ku dheer yahay oo dad noocaasaa jira wayna badan yihiin dadka noocaas oo dadka sa uga daba orda qofka uga daba orda laakiin qofka kale wanaagsan maxaa la dhahaa ama asxaanka u fala oo soo dhaweeya oo la fariista meeshuu fadhiyo oo aanan maaragtay maxaa la dhahaa waxba isweyn xataa hadduu qofkaasi lacag leeyahay ama cilmi leeyahay ama wuxuu raba ha ahaado qof niyad dhisan uu yahay qof uu wax badan ka faa'iidi karo wuxuu u arkaa qofkan inuu daciif ba yahayba hadduu asaga meel la soo fariistay uu wuxuu ka faa'iidayo uusan jirin si kasta uu ugu arka xataa inuu lacag leeyahay waayo waa qofkiibaa qof qalbi wanaagsan oo si wanaagsan qofku laakiin hadduu iska kibrin lahaa uu dhiila adigana kursigaa gaaban ku fariista gambarka gaaban ana kursiga dheer baan ku fariisanayaa waa kaa faanayaa wuu daba ordi lahaa oo maaragta masawirka ha igu dhaco iyo yacni dad waxaa jira dadka kale ula socda masawirka ha igu dhaco moogta oo iska kibriyaa jira marka yacni waxaasoo dhanna waxay hoos imaanayaan mar walba waxaa waaye kalsoonidii luntay iyo aaminaadii waxaa naga lunsan haddaan Soomaali nahay kalsoonida nafteena aan ku qabno iyo aaminaada nafteena iyo qofka kaleba aan ku qabno marka insha Allah programkaas waxaan rabaa mar inaan ka wada hadalno waayo programkaas waxyaalo badan baa ku dhex jira runtii oo aan isleeyahay waa muhiim in aynu ma aragti ka wada hadalno marka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu